Assalaamu calaykum saaxiib meel kastoo aad joogtaan. Waxa maanta barnaamijka inoo saaran wakiilka dhibka badan ee u dhashay dalka Talyaaniga ee Mino Raiola oo bariyahan daba magaciisa lagu dul qoro magaca Manchester United iyo kooxaha uu ciyaaryahanadooda wakiilku u yahay. Misana ah mid kamid ah shakhsiyaadka aadka loogu neceb yahay kubadda cagta. Si guud ahaaneed xiriir ka dhaxeeya shakhsigan iyo Man United ma aha mid wanaagsan. Sanadihii ugu dambeeyay haba ugu darnaatay waqtigii Sir Alex Ferguson oo mamnuuc ahayd in la soo saxiixdo ciyaaryahan uu wakiil u yahay shakhsigan. Haddaba ku soo dhawaada sheeko xiiso badan oo aan idinkaga diyaarinay wakiilkan. Waxaan idin soo jeedin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Mankiis iyo Cabdirasaaq Cabdulqaadir Anam. Halkan waa Man United Soomaali. Raiola wuxuu ku dhashay koonfurta Talyaaniga 1967 sanad kadib dhalashadiisa waxay u wareegeen wakiilkiisa magaalada Herin ee dalka Netherlands. Raiola ayaa awood u leh inuu si fasiixa ugu hadlo 7 luuqadood oo ay kamid yihiin Talyaani, English, German, Spanish, Faransiis, Portuguese iyo luuqadda Netherlands. Wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo isboortiga isagoo wakiil u ahaa shirkad isboorti oo Holland ku tiilay. Wuxuu ka caawiyay wareejinta dhowr ciyaartoy oo caan ka ah dalka Holland oo uu geeyay Talyaaniga oo ay ku jiraan Dennis Bergkamp. kastaba ha noqotee wuxuu go'aansaday inuu ka tago shirkadii uu ka shaqeynayo sanadka markii uu ahaa 1993 isagoo go'aansaday inuu bilaabo ganacsi u gaar ah. Haatan in ka badan 20 ciyaartoy oo ka xamaasha kubadda cagta ayaa kliyeenti u ah. Bishii Agoosto sanada 2016 ayuu ka caawiyay kooxda Manchester United saxiixii ugu qaalisanaa ee ciyaaryahan lagu iibsado guud ahaan kubadda cagta ee adduunka kaasoo ahaa Paul Pogba kaasoo xilligaas kooxda Man United ay kala soo wareegtay kooxda Juventus oo uu ku qanciyay wakiilka Raiola laabashada kooxda Man United. Mino Raiola ayaa Man United ka qaatay 25 milyan oo geni kadib wuxuu lacagtaas ku iibsaday guri ku yaalay Miami oo uu lahaa mid kamid ah madaxdii Mooriyaanta ugu caansaneed Mareykanka. 8 Maarso 2019 xiriirka kubadda cagta ee Talyaaniga wuxuu ka mamnuucay Raiola wakiilnimada muddo 3 bilood ah sababo aan la shaacin. Arrinta intaas kuma sii ekaanin. 10 Maarso cunaqabateyntii ayaa lagu sii kordhiyay oo FIFA ayaa xayiraad guud saartay Raiola iyo in adeerkiis. Balse 13 Juun 2019 Raiola iyo in adeerkiis waxay racfaan ka qaateen maxkamadda federaalka racfaanka ee Talyaaniga wayna ku guuleysteen taasoo keentay in laga noqdo xayiraadii 3 bilood ee ahayd. haddaba isku dhaca Sir Alex Ferguson ee Mino Raiola wuxuu soo bilowday 2004 kadib markii United ay la xiriirtay kooxda Ajax iyagoo ka doonayay saxiixa Zlatan Ibrahimovic oo xilligaas soo baxay. Balse Mino Raiola oo ahaa wakiilka Zlatan ayaa Man United ka dalbaday sida caadadu u ahayd in jeebka loo buuxiyo marka hore. Balse hogaamiyihii kooxda xilligaas Sir Alex Ferguson uu ka diiday dalabkaas maadaama uu ku qanci waayay habdhaqanka wakiilkan. Sir Alex waa shakhsi aragti fog misana si weyn ugu fiirsado go'aamada uu qaato. Sababta ugu weyn uu u diiday codsiga Raiola xilligaas waxay ahayd hadiiba uu heshiiska Zlatan uu Old Trafford ku keenay lacag darteed isla bari wuxuu ogaa in Zlatan uu Old Trafford ugu kaxeen doono isla lacagtaas waliba si bilaash ah. wixii maalintaas ka dambeeyay taliskii Sir Alex waxa mamnuuc ka ahayd in la soo saxiixdo ciyaaryahan uu wakiil u yahay Mino Raiola. sanadkii 2015 Ferguson oo ka hadlayay waxyaabihii dhacay 2004 iyo sidoo Pogba ugu tagay Old Trafford isagoo 3 sano qandaraas ah kooxda kula jiray ayuu sidan yiri: waxaa jira hal ama laba wakiil ciyaartoy oo aan necbahay waxaana kamid ah Mino Raiola oo ah wakiilka Pogba. waxaan kalsooni daro ka qaaday markii aanu kulannay wuxuu noqday wakiilka Zlatan Ibrahimovic markii uu ka tirsanaa kooxda Ajax. waxaan necbeystay habdhaqankiisa maalinka kadibna wuxuu noqday wakiilka Paul Pogba oo markaas u noqday 18 jir. 3 sanadood oo heshiis ah ayaanu kula jirnay Paul Pogba waqtigaas iyo sanad kale oo aan ikhtiyaar u leenahay, laakiin Raiola ayaa si degdeg ah ugu soo dhex muuqday saaxadda. kulankeeni ugu horeeyna wuxuu ahaa mid aanan fiicneen. aniga iyo isaga waxaan isku noqonay sida saliidda iyo biyaha oo kale. intaa wixii ka dambeeyay dhexdeena dab ayaa ka shidmay sababtoo ah wuxuu bilaabay in Pogba iyo qoyskiisa uu ku qanciyo ka dhaqaaqista Ingiriiska. ugu dambeyntiina Pogba wuxuu geeyay Juventus. sidoo kale Sir Alex Ferguson mar wax la gaweediyay sidoo u arko ciyaaryahankii shalay kooxda Man United si bilaash ah ugu tagay inuu haatan ku soo noqday isagoo ku fadhiyo lacag qaali ah misana ah ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda cagta xilliga ayuu Sir Alex Ferguson madal dhexdeeda sidan ka yiri: going to be a £100 million player. Pogba waa ciyaaryahan fiican balse wuxuu haystaa wakiil xun oo calooshiisa u shaqeysta ah. Mino Raiola waa wakiil dhib badan markaad dib u eegto ciyaaryahanada uu wakiilku u yahay ma ahan kuwa ku nagaado kooxahooda. tusaale ahaan Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Matis de Ligt, Lukaku, Mkhitaryan, Anelka iyo kuwa kale oo badan oo waqti kooban la qaato kooxihii ay soo mareen.
sidoo kale wuxuu ciyaartoyda uu wakiilka u yahay ku qanciyaa marka uu ku soo dhawaado dhamaadka qandaraaska ay kooxda kula jiraan in aysan saxiixin heshiis cusub isagoo kooxda ku rikaateeya heshiis kordhin uu ciyaaryahanka ku qaadanayo lacag waali ah ama in ciyaaryahanka uu si bilaash ah uu kooxda uga kaxayn doono isagoo markaas wadahadal la furo kooxo badan oo ciyaaryahanka xiiseeyo kooxdii lacag fiican jeebka u gelisa ayuu ugu dambeyn ciyaaryahanka geeyaa waana sababta uu Sir Alex 2014 isaga daayay saxiixa ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic mid ka mid ah dawiinada uu dhigo kooxda Man United ayaa haatan ku soo dhacday maadaama uu Paul Pogba ku qanciyay in uu diido heshiis ku aadan qandaraas kordhin isagoo qarka u saaran xidiga ku fadhiya 105 milyan uu mar kale kooxda si bilaash ugu tago ma garan karno waxa uu ku akhriyo ciyaartoyda uu wakiilka u yahay malaha waa saaxir Pogba waayiis Old Trafford wuxuu ku dhameystay buuq joogto ah wakiilkan afka dheer ayaana dhowr jeer warbaahinada ka soo muuqday isagoona inta badan ku hadla waxyaabo buuq dhaliyo waliba wuxuu isku soo aadiyaa marka ay Man United ciyaarayso kulamo adag markii ugu darneed uu si weyn ugu xanaajiyay dhammaan taageerayaasha Man United waxay ahayd 7 December 2020 Man United oo isku diyaarinaysa kulanka RB Leipzig oo ahaa kulan guul ama geeri ayuu Mino Raiola isugu yeeray saxaafadda isagoona sidan yiri waxaan sheegi karaa in Paul Pogba ay uga dhamaatay Manchester United sababtoo ah Pogba kuma faraxsano Man United kuma soo bandhigi karayo qaab ciyaareedkii laga filayay Paul wuxuu u baahan yahay koox cusub wuxuu kooxda Man United kula jiraa heshiis 2 sano iyo bar hase yeeshee xalka ugu wanaagsan ee Pogba iyo United waa in uu ka tago xagaaga soo socda hadalkan si weyn ayuu ugu careysiyay dhammaan taageerayaasha Man United ee ku sugan dal iyo dibadba waxaana isla markii Twitterka ugu jawaabay kabtankii hore ee Man United Gary Neville oo sidan yiri Raiola waxay dhacday sida marar badan oo hore si kastaba ha ahaatee hubaashi Paul wuu ogaa inuu sameynayo ku dhawaaqistan haddii uu ka warqabin waxa arki lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan oraah isaga ka timaada oo saxaysa wakiilkiisa ugu dambeyntii in sidan la sameeyo ka hor Leipzig iyo derby Manchester waa waqti aad ugu xun kooxda You're the player. You control the agent. You control. He's not meant to be doing it. I agree 100% with you. Yeah, I would. sidoo kale Rio Ferdinand ayaa isna kamid ahaa raggii sida weyn ugu carooday hadalkii ka soo yiray Mino Raiola isagoona sidaan yiri waxaan u maleynayaa in waqtigan uu yahay wax laga yaaqsado maadaama wakiilka ciyaaryahanka Paul Pogba ee Mino Raiola uusan ixtiraaminin kooxda kaliya uu fiirsado dantiisa hadda ma ahan markii ugu horeysay ee Mino Raiola uu sidan oo kale ugu hadlo ciyaaryahan ka tirsan kooxda Man United ama ka tirsan kooxaha kale aniga waxaan joogay kooxda Man United markii Wayne Rooney uu ka hadlayay qandaraas kordhin dhamaanteen waxaan joognay halkaas wuxuu ka hadlayay xilligaas ka tagista kooxda Man United wuxuuna doonayay inuu ku biiro kooxda Chelsea Sir Alex Ferguson isla markiiba wuxuu hortagay warbaahinta wuxuuna yiri dhageyso waxa si xun ula taliyay Rooney wakiilkiisa tanina mar kale dib uma dhici doonto United when Wayne Rooney was talking about a contract we were all there he was talking about leaving Manchester United Sir Alex Ferguson went in the media straight away and said listen he's been advised badly by his agents and this will not happen again I'm going to nip it in the bud a couple of days later Wayne Rooney signs a new contract hadalkaas wuxuu ula jeeday in Rooney waayihiisii kooxda Man United inta ka harsan mustaqbalkiisa uu ku dhameysan doono kursiga kaydka dhowr maalmood kadib Wayne Rooney ayaa saxiixay qandaraas cusub u fiirso Van de Beek ayaa yimid daraad ma uusan ciyaarin kulamo kadib isla markiiba waxa saxaafadda hor yimid wakiilka ciyaaryahankan oo ka hadlay wax ku saabsan ka tagista kooxda tani siday ugu dhici kartaa koox sida Man United oo kale Paul waa wiil wanaagsan qof walba oo banaanka ka fiiray wuxuu u maleynayaa inuu yahay wiil xun waxay u maleynayaan inuu dib ku qabo qolka labiska ma ahan sidaas ee dhibaatada uu qabo Paul Pogba waa Mino Raiola waa wakiil axmaq ah oo dantiisa fiirsado waxa jira laba talo oo aan siinayo Paul Pogba midda koowaad ayaa ah in uu iska bedelo wakiilkiisa midda xigtana waa inuu u sheegaa wakiilkiisa in uu xirto afkiisa uusan ka hadlin wax quseeyo arrimaha kooxda si public ah You're the player. You control the agent. You control. He's not meant to be doing it. Exactly, I agree 100% with you. Yeah, I would say, shut up. What are you talking about? Don't speak on my behalf and make me look bad. But what I'm saying, take that out of it. If you're at Manchester United, own that situation. Don't let be dictated to and be controlled in that situation. Sir Alex would have grabbed hold of that. You can't allow this to happen because every other player that comes in, the player's not playing or he's disgruntled. The agent's going to be in the paper talking. That's disrespectful. Don't have it. Yeah. haddaba waqtigan la joogo Paul Pogba ayaa diidan inuu saxiixo qandaraas cusub xidigan ayaa aad u xiiseynaya kooxo badan ay ka mid yihiin Real Madrid, Juventus iyo Paris Saint-Germain waxa xusid mudan in Man United ay u soo bandhigtay fursad ah in uu noqdo xidiga ugu mushaarka badan horyaalka Premier League waynu arki doonaa mustaqbalka sida ay wax noqdaan halkan waa Manchester United Somali waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ee halkan soo booqato inaad nagu dhiirigeliso subscribe noo saarto waad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka